sidana nagu filan meel kale waxaan qaltaagi mayno cidda waxa qaltaagaysaa inuu iska qaban aanu taab gaabnaana maamulahaan daanu nahay laakiin waxa idin ballan qaadaynaa inaan qadiyada iibin ama aanan baayicin baan idin ballan qaadaynaa hadii Ilaahay insha Allah ta'ala inna la ku soo gaarayaan idin ballan qaadaynaa in meeshii ay joogtay aan hore uga wadnaan idin ballan qaadaynaa mashaariic hadaynu helana maamul baynu nahay hadeynaan helina waa dhaho wallahi siyaasadda Soomaaliya ka taagan ajendayaasha hadda laga wada hadlayo ee miiska siyaasadda ee Soomaaliya saaran dad baa waxay doonayaan inay ku soo daraan waqooyi bari in la isla qaato inay maamul buuxa ahayn maamul jira inay ahayn marka qaarkeen si ordaan si yaacaan qaar kale gudaha ka gooxaan oo yiraahdaan waxba meesha ma yaan waa la hoob dadkaas miyaynan si indirect ula shaqaynayn dadka ku doodaya waqooyi bari maamul qaangaara maaha qorshayaasha soconaya ee Soomaaliya ka dhex taagan waqooyi bari waa u miisaamanta hay dhalinyarada warbaahinta si fiican baan ugu warbixiyay qodob baan uga hadlay siyaasadda Soomaaliya maanta taagan dawladda federaalka ee maamulkan dhistay baynu kala soconaa kala mid nahay inta mucaaradka sheeganaysay waa nin la waqooyi bari ma jirto iyo ninku aamusan isaga ku taageersan miyaynu kaynu wada soconay gacanta ka dhufsanaa kaayna diidanna aynu taladana u dhiibanaa muqdisho gurin in leeyahay maaha waa caasimadda Soomaaliya kamaanta diidan shalay buu joogay kamaanta diidan bari buu tagayaa iyada lama horaankiya maxaa u aadeen maxaa ka doonteen waa degdegteen warkaasuna gali maayo adduunka iyo Soomaalina waxaan u sheegaynaa nidaamka Hargeysa ka taliya wixii dhibaato ee deegaanada tan ka dhex dhaca mas'uuliyadeeda iyaga qaadaya oo ay ku kooban tahay hadii Ilaahay ka dhigo dadka naga tagay ee u galayna waxaan leeyahay maxaabiista ku darsada hadii Ilaahay ka dhigo